الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم عيدن كان وعيدن ديغان كبيرة وعيدن كحوق دلك الصوماليات وعرمنا عيدن كانوا شرفك أمد الصوماليات يعزك أمد الصوماليات يدين تبين الدفاعان بوتلان وحب عيدن كانوا أولي مميو أنا أقول هي بوتلان بأنهاي دلك يددك وكل مني وكل وعني dhibaato aan u soo fulinayna ama u keenayna lama arko dhibaatada aan dalkayaga iyo dadkayaga iyo diintayaga iyo sharafkayaga inaan difaacno mooyaane wax barabuleen aan u geysanayna lama arko madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu sheegay ciidamadu inaysan aadi karin dowladda federaalka cid federaal aadi kara inaysan jirin madaxweynuhu isaga federaal aaday isaga dhaqaale ka soo qaato beermaanta lacag ka soo qaata isagoo marka xamar aadaya oo ciidamadiina diidan in ciidamo qaran laga dhigo in maaragtay arrin loo kala yeeshiyo isagu haatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed uu ka waayay inuu anaga nagu dhibaateeyo ma aha waxaan rabnaa anagu dalkan iyo diintan iyo sharafkan intaba inaan difaacno Puntland anagu dhibaataan ku wadna lama arko waa dalkayagii waxa wax kala diray oo maqribi maqshib kala geeyay waa madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Cabdullaahi Dani Puntland waxay ahayd ummad Soomaaliyeed oo dhan baas kugu timid dirya daanood baa Puntland wada dhistay isaga baabaashay isaga wuxuu ka soo guuray oo ka soo raray muxuu ahayto Soomaali diri daarood ka soo raray isaga wuxuu ka soo raray muxuu ahayto kablalax waxay hadda maanta ay maraysaa in maanta in meeshii ugu dambeysay bahar u baahantay jifil dhaho isagu raaskiisa in dowladnimadii iyo qarannimadii Puntland intaba inuu ku koobo Puntland isaga baabaashay madaxweynuhu 7 sano uu joogay wax aan ka hayna lama arko wuxuu aaday xamar dhaqaalihii Puntland ay lahayd iyo awoodii Puntland ay lahayd iyo ciidankii Puntland uu lahaa Muqdisho iyo xamar buu ku shubay buu la aaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga soo saaray halkaas uu ka hadlo wuxuu yiraahdo uu tartami maayo waxaan rabaa madaxweyne farmaajo inaan dalka ka kaxeeyo Soomaalida kursigeeda ka kaxeeyo Puntland anagu waa u dhalan waa u dhimanay waa u dhaawacnay federaalka kamid tahay Puntland ummadda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka dugsanaysa kamid tahay xuquuqdeeda ciidanka waan helay intii naga dhimanna waxaan rabnaa inaan helno dowladda federaalka wax badan baa nooga maqan waxa nooga maqan hadii kaaba dhaqaale tahay hadii laabiye tahay hadii waxbarasho tahay intaas baa noogu dhiman ayada inaan ka helaan rabnaa caqabad aan ku hayno Puntland ma jirto anagu dalkayaga iyo diinteeda iyo sharafkayga waa difaacanayna waxaan rabnaa marka wax dhibaato ah oo lagu wada Puntland ma jirto waxaan nahay anagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa maqrib iyo maqshib Soomaali intii ku nooshay waxaan rabnaa sharaf iyo ciisi intaba in amaankooda lagu sugo dhibaato anagu aan ku wadna lama arko dalkayaga madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani isaga Puntland kala qaybiyay isaga muxuu ahay local issue ka dhigay jifo gooneeya ciidamadii Puntland oo hadda caalamiska ka dagaalantay oo difaac meel kasta martay isaga soo celiyay oo hubkoodina ka xareystay familkiisina u dhiibtay الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد عيدا كان وعيدا كونتني أفراد دولة فدرالك الصومالية قيبت قلبيت كقبل كمدق ركتي سنو بيروي عيدا كانوا وعيدا أنت بلان أي ترتيش تريوي ظروف كستو بلان أي صومرتي ولا صومرين دفاع كستو بنتلان أي قلي سنة عيدا كانوا نمبر 1 bay ka ahaayeen ilaa markii Puntland la asaasay ilaa ka hor asaaskii Puntland iyo xiliyadii halganka lagu jiray ciidankanu waxay ku soo shaqeeyeen duruufo adag meel Puntland ay difaac kaga jirto oo aysan ku dhiman oo ku dhaawacmin ma jirto aad iyo aad bay Puntland ugu dhig baxeen laakiin nasiib darro xuquuqdoodii ma ay helin ciidankan waxa qaatay xuquuqdoodii siiyay dowladda federaalka Soomaaliya wiilashii uu yiri Xamse waa matalaa way wiilashan waa runtii isugu matalaa marka xuquuq ka waayeen localkii ama maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedkii ay ka tirsanaayeen ama taliskii gobolka Mudug oo ay ka tirsanaayeen waxay xuquuqdoodii uga timid dowladda federaalka Soomaaliya ay uga timid xamar bay uga timid warkaana Puntland baa dumaysa Puntland waab ma aha meel ka dhisan Puntland waxa weeye waa dawlad awood badan weeye laakiin hadii systemkii iyo nidaamkii heshiiska lagu ahaa
oo dadka isku hayay la waayay waa la tashanaya dadku bini'aadan weeye galbeedka gobolka mudug baan joognaa maxaan ku yiraahdaa haddee mudugna waxay ka tirsan tahay meelaha laga cambidixeeyey oo Puntland waxyaabaha horumarka ay ka socda ama qorshayaasha dadku xaqa ay u leeyihiin oo 24 saac umaduhu ay qaybsanayaan meelaha ka qatamay bay ka jirtaa waxaana sababay maamul la'aan horta ayada ka timid meelaha degan oo tiro badan oo aan tala meel u wada ool marka waxa ciidankan tali uga soo dhamaatay in ay waxa weeye difaaca Soomaaliya ay waxa weeye maxaan ku yiraahdaa iyo calankaas ay ilaaliyaan rugtoodu waa beera waa ciidanka awoodda iyo tiradaas iyo muuqaalkaas iyo sharaftaas leh waxa kale oo la socotaan ciidanka soo Puntland ka dhisan ama ka shaqeyn jiray sida BSF ciidanka maxaan ku yiraahdaa ligla degan oo Jimcaale dhammaan ciidan Puntland bay ahaayeen waxa la yarkii biyihiiba ka jaray madaxweynaha Puntland Said Abdullaahi Deni oo taladu asagu isku soo koobay dadku wada baahin ma ahan ama adduunyo ma ahan meel ku xareysan dadku waa tashanaya qof kastaana wixii u dana uu markaa ku dhaqaaqaya marka wiilal reer Puntland ah oo deegaankoodii jooga oo inta tira leeg inay xuquuq la'aan Puntland ka noqdaan waxay sababtay inay danahooda iyo aayahooda iyo dadnimadooda iyo sharafkooda iyo cisigooda ilaashadaan oo ka shaqeeyaan wixii iyaga dan u ah intaasan ku soo koobaya insha Allah ilaahay isu kaaya keenay baa mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad iyo mar kasta mahad iska kulankeenan kulan khayr leh sida saraakiisha ugu horeysay ay sheegeen ciidankanu waa ciidanka rugta ama fadhiga deegaanka Beeraad ee galbeedka gobolka Mudug ciidankanu waa ciidan kana diiwaan gashan kana mushaar qaata dawladda federaalka Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed iyo maamulada iyo dawlad goboleedyada Soomaaliyaba central oo ama dawlad u ah ciidankan sida saraakiishu sheegtay ma ahan ciidan deegaankii ama ay deganaayeen ama ay joogeen ama inta ku xaqulaayeen ama waxaan la yiraahdo ay ku ilma dhaleen ama intaas cadawga iyo wax kasta ku soo duulay ka difaacayeen ciidan weerar ku ama handad ku ah ciidan deegaankooda jooga waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan ummadooda iyo dadkooda iyo deegaankooda u shaqeynaya wax kasta horar ku ama ku soo duulana difaac waa warsaas masla garan ilaahna waa ka marqaati aadana waa maqlaya waan arki doona waa ciidankii sida aan sheegay ka xuquuq qaadanayay dawladda federaalka waxa hadda loo qorayaa oo kale face labaad iyo mid saddexaad aan rajaynayno intaba waxa la yiraahdo waan shaqaynaynaa dadka iyo deegaanka u shaqaynaynaa sida saraakiil sheegtayna ciidankanu handadna kuma ahan cid hadda ay dhibaato ku hayaan ama fasaad ku hayaan ama maamulkooda Puntland ma ahan waa kuwii garabkana u ahaa gaashaankana u ahaa difaacoodana ka qayb qaadan lahaa waxaan rabnaa in sida loo fahmo loona arko waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasan yihiin saraakiishii hadalka iiga horeysay oo uu horeeyo ninka la yiraahdo taliyaha ciidanka guutada 22aad ee Bayre Cabdullaahi Cali Mursal Maxamed Guray run ahaantii ciidankan wuxuu ka mid ahaa ciidankii Puntland lagu aasaasay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed 75 Bayre uu qoray ka mid ahaayeen xilligii cadda iyo Cabdiraxmaan Faroolo iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Algaas ciidanka Puntland bay ahaayeen dani baa wuxuu ka goostay mushaarkii sida u jeedaan ciidanka waa ciidankii Bayraad inta u dhaxaysa xuduudka Galdogob iyo Gaalkacyo bay sugi jireen markii dani mushaar ka goostay ciidankani ciidan beelad ma noqon waxay noqdeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku biireen waa ciidan federaal ah haddii ilaahay ku samagol yahay Puntland wax dhibaato kuma hayaan ciidanka Soomaaliyeed bay ka mid yihiin mar labaad iyo mar saddexaadna loogu mahad celinayaa dawladda federaalka oo ciidankan mushaarkoodii iyo xuquuqdoodii meel u saaray markii uu ka goostay madaxweynaha hadda Puntland ku soo koobay Bahdul Baantay reer Goosod saraakiishkan waa salaamaya